masjidka alraxma oo ah masjidkii sheekh abuukar macalin ee ku yaala agagaarka tabeelaha jaceylka ee degmada boondheere ayaa waxaa ka socda dhismaha dabaqii labaad si loogu ballaariyo masjidkan waxaana gudaha masjidka ku sugnaa culamaa u diin qaar ka mida dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa isla markaana dalka dib ugu soo laabtay waxa ayna ka codsadeen dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan gacanna ka geystaan dhismaha dabaqa labaad ee masjidka Sheekh Abuukar Macalin ee ku yaala degmada Boondheere masjidkan ayaa waxaa dhismihiisii ugu horeeyay la dhisay 1970kii iyagoona ay wax ka barteen culamaa u diinka ugu waaweyn dalka Soomaaliya Sheekh Ahmed Sheekh Abuukar Macalin oo ah imaamka masjidka iyo Mayow Xasan Cabdi muadinka masaajidkaasi ayaa si wada jira ugu baaqay dadka muxsiniinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan masaajidka marka wuxuu u baahday qaybta kore in lagu daro qaybta hoos masjidka waa dhisan yahay waxa dhisay dadka muslimiinta muxsiniinta adduunka meel kasta joogaan maanta marka waxaan joognaa qaybta kore oo loo baahday masaajidka in lagu daro baahi badan oo loo qabo in lagu daro qaybta kore ayaa jirto marka waxaan doonay in qaybtan kore aan ku darno marka insha Allah saad u jeediin oo arkaysiin waa qaybta kore bilowgeedii marka dad ahlu khayr ah oo noo bilaabay marka waxaan rabnaa insha Allah aan u jeedihiina dadka muslimiinta ah oo muxsiniinta ah khaasatan ummadda Soomaaliyeed oo markii horeba masjidkan qaybta hoose dhisay haddana insha Allah waxaan ka rabnaa oo ka doonaynaa inay dhisaan qaybtan labaad haddii la yiraahdo muuminiinta masaajidkan inay hal dhagax ka darsado xasanaadkiisa ma yara ulamada noo sheegtay wama tuqadimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah hadi sheekhayna dhahay waay marka alxamdulillah rabbil alamin muuminiinta meel kasto joogaan inay wax ka darsadaan oo masaajidkan la dhiso wax soo herayo bir adag ku la herayo oo qiyaaman ku tagay masaajidka jiro sidoo kale waxa dhankooda goobta ka hadlay culamaa u diin iyo qaar kamida ardaydii wax ka bartay masjidkan oo dalka dib ugu soo laabtay hadii nabiga uu dhahay kaleey salaatu wasalaam qofka dhisa masjid oo ilaahay dartiisa u dhisa jannadu gur ugu dhisa masjidkuna hal masjid ma ahane ilaahay quraan ku sheegayo man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa ugu yaraan waa inta ugu yar hal shay markaad sameeyso ugu yaraan 10 ayuu ilaahay ku jaazihaa marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah meel walba ay dunida ka joogaan dibadda iyo dalka gudihiisa intaba in akoonadooda jeebabkooda ay u furaan masjidka dhismihiisa nagala qayb qaataan marka waxaan codsanaynaa insha Allah taala ummadda islaamka waxaan ka codsanaynaa khaasatan Soomaalida dibadda iyo gudaha joogaan oo muxsinaadka iyo muxsiniinta ah inay maaragtay masaajidkan ka qayb qaataan wixii tabartooda ay ku darsadaan kii dhagax dhiibi kara alwaax kii dhiibi kara maaragtay shamiito kii bir dhiibi karo meesha ugu fiican ee wax lagu baxsado waa masjid walaalaha ummadda Soomaaliyeed iyo islaamka oo dhan waxaan u sheegaynaa ama aan ka codsanaynaa insha Allah taala inay kaalmeeyaan masjidka waxa baxsato masjida ugu wanaagsan sidii culimada ka dhawaajiyeen dhamaantood halkan waa masjidka sheekhi weyna ee caalimka ah Sheekh Abuukar Macalin waxaana wax ka bartay culimada ugu waaweyn dalka Soomaaliya mashaayiqdii ka hadashay dhismaha masjidkan ee dabaqa labaad lagu dhisayo ayaa waxa ay ka codsadeen dadka muxsiniinta in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan